gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh ayaa maanta u qaybiyay deeq raashin 680 qoys oo danyar oo ku nool magaalada Boorama. deeqdani oo dawladda Sacuudiga ugu tala gashay dalka Soomaaliland taasoo ay madasha lagu qaybinayay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama. waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee gobolkani Awdal waxaana uu sheegay oo aan ku qaybinano mucaawinadii King Salman ee Sacuudiga nooga timid ee ay soo walaaliyeen maareeyaha guud ee xafiiska Nadfor deeqdan degmada Boorama aan loo qaybiyay xaafadaha Sheekh Ali Jawhar oo 150 qoysa, Sheekh Ahmed Salaan oo 150 qoysa, Sheekh Makaahil oo 150 qoysa, Sheekh Ismaan oo 150 qoysa iyo 50 kahaya yaabe loo qaybiyay. kadib waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali iyagoona deeqdani uga mahadnaqay hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda dalka Sacuudiga. raashinka waxa bixiyay oo uu ka soo gudbiyay maareeyuhu Boqor Salmaan markii ugu horeysay horta iyo waddanka Sacuudiga waan uga mahadnaqaynaa معاومة أن السوق عرسيين آدي بان نقوم هالنقينا ماريها وأنمك وذا الشقين إن لو بتشر واحد عين مرة أبارو مرة دوفان هذا لو بدأ الشر بقبل كمان كوذا الشقيني هاي داروتي آدي بانو أنا أقول قرية إلى وحقبض موضع إلى وقت جيل أبو ري أي قبطي إلى وقت كان وذا الشقيني هاي بان نقوم هالنقينا شقادي قبطينا وان وقد عينا ماريه وكوه قامين يجي قابتنا إنه شغنا قابتي لبعض xaafadaha Boorama iyadoo laba xaafadna ay dhimay yihiin afartii xaafadood xaafadii Sheekh Ali Jawhar waan soo qaybinay waxay noo hadhay oo imika joognaa oo xaafadii labaad xaafada Sheekh Ahmed Salaan waana arkaysan dadku soo joogaan iyo habsamida ay hawshu socoto waan uga mahadnaqayaa hay'adda deeqdan keentay ee bin Salman hawshana waxa garwadeen ka ah maareeyihii oo maanta inala jooga hay'adda Nadfor Faysal Cali Sheekh oo inala jooga iyo shaqaalihiisii waanan uga mahadnaqaynaa sida ay u xuleen ugu hagar bixeen habsami u socodka hawshan loo wado. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland Faysal Cali Sheekh isagoona ka warramay deeqdani iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay sidoo kalena sheegay in guud ahaanba gobolada dalka laga qaybin doono. runtii maanta aad baan ugu faraxsanahay inaanu joogno gobolka Awdal khaasatan magaalada Boorame oo aanu ka bilownay mashruuc raashin qaybina oo aanu ka soo gudubnay gobolka Maroodijeex gobolkii labaad ee aanu nimaadnaana oo ahaa gobolka Awdal ilaa 5 meelood baa maanta noo qorshaysan Sheekh Ahmed Salaan Sheekh Makaahil Sheekh Ismaan iyaduna waanu ku qaybin doonaa iyo hayayaabo oo iyaduna la geyn doono marka intaas waa inta magaalada dhexdeeda sidoo kale insha Allahu Kariim waxaanu gaarsiin doonaa wasaaradda caafimaadka oo dhinaca isbitaalka qolada AIDS-ka isbitaalka iyo qaaxada maxaabiista jeelka Boorame iyadana waxbaanu gaarsiin doonaa hadii Ilaahay ilaa 100 goys sidoo kale iyagana waxaanu wax gaarsiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo caruuraha special needska ama baahiyaha gaarka ah sidoo kale inta kuma ekaan doonee gobolka degmooyinkiisa gobolka Salal oo Saylac ay xukunto iyadana waa gaarsiin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo lughayo waa gaarsiinayna hadii Ilaahay yiraahdo deegaankeeda sidoo kale waxaanu gaarsiin doonaa degmada Bakina waanu gaarsiin doonaa degmada Dilana insha Allah Kariim waa gaarsiinayna waxaanu rajaynaynaa runtii dad baahan oo la soo xulay oo inta ugu baahida badan ee ugu jilicdasan ah ayaa runtii sida aad arkaysaan halkana taagan meelaha kalena aanu ku qaybin doonaa marka Ilaahay idinkii inay dadkaasi ka faa'iideysan doonaan baanu cuntadu waa 7 nooc bay iskugu jirtaa qoyskiiba bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo baasto iyo saliid iyo timir iyo faasuuliye 7 item bay iskugu jirtaa marka qoyskii waxaan filaynaa sida aad arkaysaan cunto ku filan oo dheeli tiran oo nafaqaysan runtii weeye waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.